إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي في الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ولا ليال وحنيدكم السلام يا سلام أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحننشي عليها إن إدين سو قدمه سلسلة اسكو دبتحن oo ka hadlaysa labada qof ee isguursaday ee Ilaahay hortii isu guursaday siday u wada joogi lahaayeen. kama hadlayo jacaylka iyo maxabadda iyo canaasirka ka horeeya guurka. waxaan ka hadlayaa labadii qof markay isu yimaadaan ay isguursadaan caynkii ay u wada dhaqmi lahaayeen ayagoo Ilaahay ka cabsanaya. waxaad moodaa maanta dhalinyaro fara badani inay guurka moodeen inuu yahay barnaamij telefisyon laga daawanayo oo kale, oo xaggooda waxa weeye maanta berita shalaan isbaranay, maantana waynu isguursanaynaa, beritana waynu kala tegaynaa. taasoo ay ku qiyaaseen qiyaastan gaalada u yaqaanaan datingku waa inan iyo inan saaxiiba, way isteerigareynayaan inay isku wanaagsananayaan iyo inay isjeclaan karaan iyo inay wada socon karaan, way iska wada noolaanayaan, way wada seexanayaan, way wada lugeynayaan, way soo wada cashaynayaan, guriga wada degayaan. wiig laba saddex bil ka bacdina albabada kala qabsan waxa leeyahay nabadgelyo. uma arko inaad igu qanacsantahay, anna uma arko inaan ku qanacsanahay, waa inooy nabadgelyo. dhalinyaro fara badan oo tashabbac ku sameeyay telefisyoonada daawanayeen iyo aflaamtay daawanayeen iyo riwaayadahay daawanayeen iyo waxay akhrisanayeen oo dhaqankii gaalada aad moodid inuu u noqday asaas u noqday oo wax walba ku saleeyay dhaqankii gaalada ayaa inta isguursadaan beritana kala boodaya. waxa cajiib ah markii hore markuu qofku orday inantani waxay isqabeen sanad oo way kala tageen, waanu ka nixi jiray oo waanu oran jiray war maxaa dhacay, inantii maxaa ku dhacay, inankii maxaa ku dhacay. imika laakiin waxaad arkaysaa qaar bil wada joogay, qaar wiig wada joogay iyo qaar maalin wada joogay. waxay ku kala tegayaanna waa wax bilaa macnaa, yani waxaan inaka aynu oran karo waa sabab wanaagsan iyo qiil wanaagsan ma aha. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu yidhi at-talaaqu marratayn, in la isfuro waa laba goor oo waa xalaal. cidina ma diidayso, saxaabadina way isfuri jireen radia allahu canhum ajmaciin, laakiin de wax bilaa macnaa iskumay furi jirin intooda badani. oo inaku waxaynu aragnay bilaa macnata iskumay furi jirin. inan bay ka soo booday, inanka ha laga fura bay tiri, oo imisa isqabteen bil ama wax ka yar. inanka maxaad ku nacday aad kaga soo booday? inanku been buu ii sheegay bay tiri.
waan wada yaabnay waxaan war inankan inanta beenta u sheegay de been weyn bay ku qabatay inankiya bal inanta aynu dhageysano hadday beenteedaasi wax macquula beenta inanka uu sheegay hadday wax macquula ay tahay de inanka anaha ka fardaaminaba inanta ka saareen oo ka kaxaynaan oo ka eriyana bal noo waran baan ku inantii marka ingiriis baynu kula hadlaysaa waa aad iyo aad casabid iyo xamaas iyo energy iyo way passions bay kuwaas wax ka leedahay he lied to me been buu ii sheegay beenti waa maxay waxay tihi ninkani inuu habeenkii markuu sexdo khuuriyo iimuu sheegin intaanu isguursanin imika markaan aqal wada degnay aanu wada guri wada galnay uu habeenkii sexday habeenkii ugu horeeyey ayaan naxay oo maxaad ka naxday khuuradiisii marka he lied to me been buu ii sheegay ninkan iga fura waxaan u aragnay marka bal dhalinyaradan isguursanaysa haddana markiiba soo kala boodaysa bal inaan horta u macnayno guurka iyo jacaylka iyo maxabadda iyo wada joogani waxay yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka iyo gabadha markuu abuuray wuxuu u abuuray inuu mid walba keligii uu naaqis uu yahay oo nini gabadh la-aan ma noolaan karo gabadhina nin la-aan ma noolaan karto oo waayo ilaahay taa aawood buu yihi wamin aayaatihi an khalaqa min anfusikum aswaaja aayadaha ilaahay waxa ka mid a khalqi samaawaat baa laga soo hadlay khalqi alard baa laga soo hadlay khalqi aljibaal baa laga soo hadlay waxaa laga soo hadlay khalqi almalaa'ika khalq fara badan baa laga soo hadlo ilahay meelo badan kaga soo hadlay wa min aayaatihi wa aayaadihiisa waxaa ka midana wuxuu yidhi an jacala lakum min anfusikum aswaaja inuu idinka aswaaj isxidha oo isbuuxiya oo iskamila idinka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ninka iyo gabadha wuu isu sameeyey sidan carabka kusoo dhuftay markii hore gabadh keligeed noolaan kartaa ma jirto nin keligeed noolaan karaana ma jiro labada ilaahay wuu isu abuuray maxabad iyo jacaylna wuu dhex dhigay wajacala baynakum mawadatan waraxma buu ilaahay yidhi dhexdiinana waxaan dhigay mawadaduna waa maxay waa maxabad waa jacayl waa jiljileec hadigoor culamadu waxay idhaahdaan mawadada maxabadu waxay ka timaadaa xagga gabadha oo ninku dawiis yara adkeynaya waa jaajuurka malaasan oo ma jecla inuu marba gabadhiisa ku yidhaahdo waan ku jecelaya waan ku buka iyo waan ku dhimanayaayo meel baa xanuunsay halbowlaha iyo wareege iyo halbowlaha laygu dhufta iyo halkaasay gariiraysayo ma jecla isagu wixiisu waxa weeye maxaynu cunnay maxaynu cabnaayo reerkagiyaa kalada kasoo bixinaya marka gabadha waxaa laga yaabaa inta badan in iyadu xagga mawadada iyo inay expressionka iyadu ay la timaado ay ninkeeda 100 goor maalintii ku tiraahdo waan ku jecelahay xabiibi xagaa tagtay caynka marka ilaahay wuxuu waja'ala baynakum mawadda culimadu waxay yiraahdeen mawadadu inta badan waxay ka timaadaa xagga dumarka waraxma iyo raxmad raxmaduna waxay ka timaadaa xagga ragga oo waayo gabadhan ruuxan dumarkii warta waa bini aadan بني آدم كانوا ورتا مهما كمل الإنسان فكمال الإنسان نقصان بني آدم كسوى البهاي سوى أركو إنه أسوى بيرفكت يهي حقيقة دي سوى حوية وناقص قف كاس بني آدم كو وناقص قبل لنا أنت وحاول لير وعاطفة وإيموشنال وهدي يقول دارين كده أيا الله جاي يبا إنه كبصه الريو عقل كده oo gabadhu laga yaaba bishii week dhan inay mawjadeeda caatifadu ay kala dul saaran tahay oo ay xiimasaba haday uur leedahay laga yaaba inay adduunka laba ka hadlayso haday yara xanaaqdo way isrogaysaa oo xitaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam dumarku de markay maxabadii u hayeen Aisha maxabadii nabiga tusi jirtay marmar bay xadka ka yara talaasan jirtay oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wakiiday inako garanayna habeen intuu siri Caashi way seexatay imika bal yarabax Caashina inta isdaday la dumarka wada mukrmeelan ma kala laha saxaabid iyo saalixad iyo way isduubtay ishana waxay ka eegaysaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabigi marka wuxuu siri way seexatay gabadhii xaaska uu seexdo markaasuu aayar intuu kabihiisa qaatay ayuu baxay Caashina قم بسكوسو سجل باب كذي عبادي وحس دبر لقى ما أنت كل حفص كصعدا أما ومسلم كصعدا أما هبلاي كصعدا كدبتك وكقبه نبي جيبه صلى الله عليه وسلم
wuu socday wuxuu tegay albaqi xabaalihii buu tegay asxaabtiisii dhintay qaar dagaal ku dhinteen qaar xanuun u dhintay meesha ku aasnaaba ayuu soo wadacay nebigu sala allahu calayhi wasalam waa markuu dhimanayena waa ayaamihii uu nebigu dhimanayay uu soo socon karayay caashi marka way daba socotay waxay talo malaa waxay islahayd talo tuma kula kulmi doonta halka talo heblaayna guriga ka soo baxsato ayay la waa romantic bay odhanaysaa waa date akasta laga yaaba inay ku ballameen caashi marka nabigiiba sallallahu alayhi wasallam ilaalinaysa laga yaaba inay afkaar badan qudheeda ay isdaba taxan yihiin oo iyadu wax u haysato nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu waajibkiisa soo dhamaystay ayuu soo laabtay markuu soo laabtay ayuu wuxuu arkay qof madow ilaa waa cabaayad madow bay xidhanta waana gudcur oo hor socda caashin way soo laabtay way aragtay wata hor socota nabigiiba sallallahu alayhi wasallam tallaabaduu soo yaro dheereeyey caashinada tallaabada sii dheersay la wala soo gaadhayaayo way isa sii dayso maqsinka yaraaba isku tuurtay nabigina uu ka dul yimi sallallahu alayhi wasallam ayadoo hiinraagi soo laabti caynka u boodboodayso ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku caasha mada idaba socday oo gabadhii hadda iska dhigaysay horiday markaasay tii yaa rasuulallah waan ka boqo waxaan sirday mala gabadhiisi kale ayuu u tagay way tuhumtay nabigii bay tuhumtay sallallahu alayhi wasallam rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam intuu laabta sidaa u qabtay buu ku yidhi caashaay ma waxaad u malaynaysaa inuu ilaahay iyo nebigiisuba xaqagii kaa ku dhaafiyaan imaam maalik baa la weydiiyey waxaa la yidhi yaa imaam maalik caashi waxay ka shakida nebigii waxay istidhi mala reerarkii kale xaasas kale u tegayaaye maxuu nebiga sallallahu alayhi wasallam labadii saxaabi ee ag marayay habeenada ka mida muxuu nebigu sallallahu alayhi wasallam u joojiyey oo maxaa labada saxaabi looga warwari casho looga warwari waayo ujeedaduna waxay ahayd nebiga sallallahu alayhi wasallam habeenada ka mida asagoo ictikaaf ku jira ayaa xaaskiis ka mida ayaa u timi nebigii markaa la joogtay in badan bay la sheekaysan waa ictikaaf cadceedii baa ugu dhacday cishaay baa la tukaday waa meesha gudcur bay noqotay dee waa nebigu sallallahu alayhi waa nine oo dee khiirad le oo raganimo ku jirto wuxuu diiday gabadhiisii inay gurigeeda keligeed u lugayso dhexeeg nebigii baa yidhi kan gurigaana ku geynaya waa ictikaaf ku jira rasuul sallallahu alayhi wasallam ictikaafkii buu ka soo baxay gabadhiisii isagoo sii wada ayaa laba nin oo saxaabiyiin ah oo ansaartii baa nebigii sallallahu alayhi wasallam soo agmaray waxay arkeen markaa nin iyo gabadh wada socda meel madoowa gudcura marka dee nin iyo gabadh meelaha wada maraya hadii goor shaytaan wuxuu kulanaya way hasaawayaana baleeg meel bay kusii socdaana baleeg gidaar bay imka isla gelayaane bal yara sug nebigiiba markay labadii saxaabi ay nebigii arkeen ayay tallaabada dheereeyenaysa nebiga deg deg u dhaafa nebigiiba sala allahu alayh warkaalaya buu ihi kaalaya tani waa heblaayo waa gabadhaydii yaa rasuul allah bay idhahdeen miyaanu kaa shakeynaa adiga suu yihi inamaa yajri shaytaanu min bani aadama majra dam shaytaanku buu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam xididada bini aadanka ayuu ordaa oo waxaan ka baqay anigu marka muxuu ka baqay inaan labadan saxaabi ila gabadh niqaab xidhanoo wejigeedii aan la arkayn buu wataaye inaan labadan saxaabi shaytaanku ku afufu idhaahdo talow nebigu sala allahu alayhi wasalam nin ictikaaf ku jira buu ahaye talow tan uu wataa waa tuma nebigu malaa dumarkiisii intuu ka qariyey ayuu mid kala wataa shaytaanku inuu ku ciyaaro labadaas saxaabi buu nebigu markaa u diiday maalik baa la weydiiyey imaam maalik waaya buu yidhi imaam maalik hadday labadaas saxaabi nebiga intaa inaga ay ka shakiyaan way gaaloobi lahaayeen waxaa la yidhi yaa imaam baa la yidhi soo tan caashiba nebigii intay daba gashay aamini weyda sidee malaa dumar kale u tegaya ayadu shakigeedaasi miyaanu gaalnimo gaadhsiinaynin nebigu imaam maalik wuxuu ihi radia allahu canhu waraxima wuxuu ihi may hinaasiga dumarka iyo caatifada dumarku xukum gooniya ayuu leeyahay ujeedadu markaa aan uga jeedaa waxa weeye ninkii waynu garanayna ilahay wuxuu ihi wajacala baynakum mawadda raxmadii marka waxaa xagga ninka ka timiyo gabadhan caadifadeedii isbadbedelayso ee taqalubka faraha badan isku samaynayso ayaa looga baahan yahay ninku inuu u naxariisto wajacala baynakum mawadda waraxma raxmad baa laga doonaya marka
ninku inuu yimaado gurigii uu arka gabadhii isku daadsan, xaaskii isku daadsan, oo laga yaaba inay xitaa asagii si xun u soo dhoweyso ama ugu soo bilowdaba hadalka. waxaa la leeyahay war ninkow cagaha dhulka dhig, miyirso, ha degdegin, dalaaqa iyo feerhka labadaba iska ilaali, sabaaxadda iyo tabcadana dhinac inoo dhig, ha degdegin, gabadhu waa caatifad oo raxmad baa lagaa doonaya. wajacala baynakum mawaddatan waraxma. inagoo intaa markaa og, waxaynu doonaynaa inaynu bal nidhaahno labadii qof way wada joogaane islaamiyan markaynu u eegno cankeebay isu jeclaan karaan. labadan ilaahay isu keenay, midna laga dalbaday maxabadda inay aada u muujiso, raxmadna waa laga doonaya qudheeda. ninkiina laga dalbaday inuu raxmad aada u muujiyo, maxabadda waa laga doonayaa. laakiin waxaa la yidhi bal labadii aynu eegno. waxaanu jecelahay dhalinyaradan isguursanaya kala boodaya ee guurka moodaya sharabaad la gashanayo la bixinayo, bal inaan arrimo u taataabto oo insha allah hadday arrimaha ku dhaqmaan guurku wuu adkaanayaa, guur xooglo ayuu noqonaya. maxaa ugu horeeya marka? waxa ugu horeeya 20 noqdood baa laga yaabaa inaan hayo, laakiin waxaan doonaya bal inaan xalaqadba inaan inoo sheego. ta ugu horeysa waxa weeye waa diin. ta ugu horeysa waa diin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay suurat albaqara, walaa ama addoomad mu'minad ah ayaa ka fadli badan qof mushrika ama gaala ama caasiya, ayaa ka fadli badan. nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, war dumarka 4 baa u guursataan. saxaabadii nebigu waa nin, raggu siday u fakiraanna wuu garanaya, waxay jecel yihiinna wuu fahamsan yahay. wuxuu war dumarka 4 baynu u guursanaa. haye waa qurux oo dee halkaa suleekha dhex yar marka halkaa ka aragtid ayaa diintii iyo xijaabkii iyo akhlaaqdii iyo laga yaaba ayada intaad khaanad ku dabooshid aad tirahda wallaahi taamijaha yaryar ee halkaasii ordaysa ayaaba aniga igu habboon oo igu bannaan. nebigu wuxuu markaa dumarka qurux baa u guursataan buu yidhi. kow waa xaqiiqad, lama diidin lamana xaaraantimaynin, laakiin wax ka fadli badan baa jira. haye wuxuu yidhi waxa kale u guursataan buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasallam, dumarka waxa u guursataan wuxuu yidhi waxa weeye gabadhani waa gabadh reer ka soo jeeda, walinasabiha, oo gabadhani waa reer hebel bay ka dhalatay, aabbaheed baa caynkaa iyo caynkaasa, qoladaasay ka dhalatay, ayaa dumarka loo guursaday. gobonimo ayaa loo guursadaa. oo dee waxaad doonaysaa ilmahaagan yar ee dhashay inuu hadhow abtiyaashii ku faano, uu hado yarkaygan abtiyaashii waa ragga, inuu ku faano ayaad doonaysaa ilmahaagu. marka wuxuu yidhi nasabna waa u guursataan. waxa kale u guursataan buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam, waxa u guursataan buu yihi dee hadday gabadhu xoolo yar hayso, dee sharshaar yar iska tahayo, hadhow dee dukaan yar furtayo, meel bacadla ka soo jeedo oo ama xawaalad yar dahabshiil ama tawakal u fadhido oo dee hadhow in yar lacag haysata, taana waa loo guursadaa buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam. muu xaaraantimaynin. wadaadadan u tarisaya islaamahan yare dhowr kun haye ku fadhiya ama 100,000 ama 50,000 oo doolar ku fadhiya u tarisaya, idinkamuu xaaraantimaynin nebigu sala allahu calayhi wasalam. laakiin wuxuu yihi dumarka taana waa u guursataan. markan yaraa aan sacuudigaanu joognay waxaa jirtay gabadhani dhaban may lahayn oo qurux dee may lahayn, reer la yaqaano oo wanaagsanna kamay soo jeedinoo dee waa rar maasha allah, waa 9 way guursatay. markaasaan yidhi walaalkii baan weydiiye, waxaan ku ihi allah yarxamu, gabadhani raggu maxay u guursadaan? wuxuu intuu qosay buu yihi walaal weli nin yar baa tahay aan ku warran buu yihi. gabadhani waxaa la moodi jiray markaa gabadhani, ama iyadu ay odhan jirtay waxaan u shaqayn jiray king fahad reerkiisa ayaan u shaqayn jiray. haye xoolo fara badan bay isoo siiyeen. ayada ilaahay baa ogo labayk allah weeye, doorta waa gabadh is asturan oo hagaagsan bay ahayd, laakiin waxaa lagu tuhmi jiray
inay in yar ku fadhido markuu midi ka baxaba mid kale soo gelishay dabinka mid baan de waakan hayta laka buu oran jirtay wallahi deemka ma haye bal yaraska dhawaan ku iibinay qalaabi yar ama iska rogay yar ama taksiir ba ku iibinay kortida u kaadiyo marka 3-4 sano hayso ay oranaysa war ma haye waan kugu soo xareynay uune barka waran de waka albaabka ka booday marka gabadhi marka rag marka nabigu wuxuu yiri wali maaliha xoolahana طبعا ba idinka gala muu xaraamtimay laakiin wuxuu yiri waxa loo guursada dumarka قال ولدينها دين تدنا في صحيح البخاري مركا وحيري فاظفر بذات الدين وحيري قبصدا أو أتكيستا أو هايستا تدين تله تربت يداك نبيو ساسو صحابتي رضي الله عنهم كردر دار أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيام مركو ده طلب العلم دي صور لميي ayaa wuxuu jecelaysay inuu de fariisto masaajid oo caalim ka noqdo oo wax dhigo wuxuu markaa habaryartii buu u tagay wuxuu habaryar in imika guurdoona waana hay barheer hebel u tago waxaan maqlay inay yihiin dad diin leh bal ii soo warayso habaryartii ordaysaa soo noqotay abshir billadii yasurrak baytii war wanaagsan man ku hayaay iga dhageyso labada hablood horta waa laba khayr leh laakiin tayari tima madow oo qurux badan ayay leedahay oo dheer alkaaya dhabarka gaarsiisan oo waliba duuduuban indho waaweyn way leedahay oo xiribaha intaasay leegni ku soo eegayaanba dhabankeena waa aad bay qurux badan tahay waana castay haye markuu ka guray buu wal kabiira tawayna ka waran taa iska daabay tiri tima yaro jurro ana way leedahay gaaban jirkeeduna wuu yara madow yahay waa yara maariin labada indhoodna mid baabay indhadeeda labada ay yar tahay in taa iska daag wuxuu badiinta iga waran waxay tiri isuma dhigmaan tawayn baa diin wanaagsan wuxuu yiri taasaan guursanaya taa ayaan guursanaya gabadha uu guursaday waxa loo jeeday culimadu oo umma saalix 20 sanadood ka bacdi bay dhimatay markii la aasayay ay iilkiisa loo dugtaagna ee la soo aasay ayuu yiri rahimallah umma saalix ilaahay ha u naxariisto umma saalix ma aghdabatni yawma maalin qura iga may cadaysiinin maalin qura ka warramay dumarka maanta joogaana maxaa maalina saacadii bay 20 goor ka cadaysiinayaan laakiin Ahmed bin Hanbal wuxuu yiri 20 sanood baan wada ayaan isqabnay maalin iga may cadaysiinin waayo gabadh diin leh ayay ahayd waxaan ku soo gunaanadaya waxa ayaan dhaweyto mushkilad ban xaleynayay wadan kale ah mushkilada inankiyo inantu way kala boodeen waayo waxa leeyay wuxuu yiri inantu sigaar way cabtaa waanay afxun tahay salaad iyo cibaadana laguma yaqaano waxaan ku iri walaalo inanta ceebta ma ku ogeyd waan ogaa buu yiri deemta sigaarka iska yara buuf iska qarxiso waan ogaa in de hadal xunna kumaan ogeyn sida u sii xun salaadana waxaan islahaa ana adaa ku soo hanuunin doona waan in tukado oo wadaad u eeg laga yaabaa ninkaasi inuu diintii mar qura ka dulbooday waxaan leeyahay marka nabigu sallallahu alayhi wa sallam inagula dardaarmo aad buu inagula dardaarmo wuxuu yiri ta diinta la guursada anna waxaan kula dardaarmay hadii aad doonaysid inaad qof kula noolaado oo mashaakilku uu yaraado han noqdo qof diin leh waayo nabigu sallallahu alayhi wa sallam rag iyo dumarkaba wuu la dardaarmo marka hadii labadii qof ay isqabay ayaduna bila diin tahay asna bila diin yahay de marka maxaa dhacaya asaasi guriga ayaa dumay labadii qof ma wada noolaan karaan mashaakilkuna wuu sii fidaya marka waxaan leeyahay labadii diinta lahaa ee wada joogay ilaahay isu keen barakeeyo labadii mid diin uu lahaa ka kalena uu sakaraad yara ahay oo firdhanayay asagana insha Allah la soo dhaweeyo halana qaboojiyo labadii isguursada diintu ku yaraydna waxaan idin leeyahay imika maanta bilaaba oo asaaskiina diin ka dhigta oo dib u noqdo
oo laba tallaabo dib u qaada oo waxaad tidhahdaa maanta marka laga bilaabo waxaanu ku dhaqmaynaa diinta way idin kala saaraysaa, xaqiina idin tusaysaa, mid walba xaqu leeyahay iyo xaqii lagu leeyahay bay idiin sheegaysaa. marka isqabsataan waxaad leedihiin bal kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga aynu soo qaadno. caaisha iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam caynkabay mushkiladan u xaleeyeen, khadiijo iyo nebigu mushkiladan caynkabay u xaleeyeen, abubakar iyo xaaskiisii caynkabay u xaleeyeen, cumar iyo reerkiisii caynkabay. marka diintii ayaad wax walba ku salaynaysaa. ilaahay asagaa ina abuuray, kitaab manual oo aynu ku dhaqanana wuu ina soo raaciyey, qur'aan iyo sunna labadii marka ayagaa reerka dhaqaya. laakiin haddaad labadiiba ka aradan tahay oo aanad midna aqoonin, waxana aanad ku qabsan karaynin, hebel baa caynkaa yidhi, aabbahay baa sidaa yidhi, hooyada baa sida ahaan jirtay, dee idin kala saari mayso. anigu waxaan leeyahay bal diinta ha lagu soo noqdo, ilaahayna ha inaga aqbalo. wajazaakum allahu khayr.